muddo 60 sano ah kadib waxaa markii ugu horeysay magaalada Beledweyne laga hirgeliyay ceel riig ah oo lagu guuleystay in laga helo biyo macaanka oo awood u leh in uu biyo siiyo xaafadaha kala duwan ee afarta ah ee Beledweyne ay ka kooban tahay. ceelkan riiga ah ayaa laga hirgeliyay deegaanka Hiranbile ee duleedka waqooyi ee Beledweyne waxaana hawshiisa ay socotay muddo dhowr iyo 10 cisho ah. hindisaha ceelkan riiga ah waxaa lahaa Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble waxaana si iskaa wax u qabso ah u fuliyay Axmed Maxamed Ibraahim oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee deegaan ahaan gobolka Hiiraan ka soo jeeda oo ka damqaday dhibaatooyinka dhanka biyaha ah ee haysta bulshada Beledweyne. Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, wasiirro iyo xildhibaano Hirshabelle ka tirsan, xubnaha ugu sarreeya maamulka gobolka iyo kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana goobjoog ka ahaa munaasabadda xarig jarka ceelka riiga ah ee Beledweyne laga hirgeliyay. Axmed Maxamed Ibraahim oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan ka soo jeeda ahaana shaqsigii hirgeliyay ceelka riiga ah ee lagu guuleystay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa ku dhaliyay in ceelka riiga ah Beledweyne uu ka hirgeliyo. waan salaama dhamaantiina munaasabadan daahfurka ceelka laga qoday xaafadda Hiranbile magaalada Beledweyne dhammaan waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigu magacaygu waxaa la Axmed Maxamed Ibraahim in waxaan ahay u dhashtay Hiiraan waxaan ahay ganacsato oo ka shaqeysa waddanka Soomaaliya oo private ah hay'ad aan ku xirnayn ceelkan haddii la yiraahdo waxna maalgeliyay ama waxa oo haddii la yiraahdo taan kuleen aan qof aan ka helno ma jirto iskeena ayaa haddii la yiraahdo u qodnay walajeedkiisana wuxuu ahaa sida aan la socono dhibaatada iyo baahida haysato dadka magaalada Beledweyne oo degan. ceelkan haddii la yiraahdo waxa la bilaabay 14 bari ka hor ayaa la bilaabay 5 bari waxay ahayd haddii la yiraahdo isdiyaarintii iyo maalin jimco ku jirtay 8 bari ilaa 9 bari kaliya qodashadiisa ay ku dhamaatay. marka aadan ugu faraxsanahay inuu haddii la yiraahdo beedkii koobaad oo hawsha oo noo soo dhamaaday. hawsha intaan kuma eko wali way sii socotaa haddii la yiraahdo waxaan ka codsanaynaa haddii la yiraahdo in haddii la yiraahdo ummadda si wax u helaan inta kale manna in la taakuleeyo haddii la yiraahdo. gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale iyo madaxweynaha Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo hadlay dhankooda ayaa iyana bogaadiyay dhismaha ceelka riiga ah ee Beledweyne laga hirgeliyay. salaan kadib waa ilaahay mahadiis maanta in halka aan joogno xaafadda Hiranbile degmada Beledweyne in laga helay ceel runtii aad aan ugu faraxnay oo biyo macaan oo maxaan ku raahdaa runtii baahidii loo qabay iyo ducadii aan duceysanay oo ugaasku noo duceeyay ilaahay dartiis uu nagu siiyay maxaan ku raahdaa biyo wanaagsan. waa soo dhaweynaynaa ganacsatada maalgelisay waxaan rajaynaynaa ceelka inuusan intaan ku ekaan ceel kale fara badan eeriyada laga qodo si loo kaafiyo maaragtay dadka deegaanka. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. salaan ka bacdi runtii dhalinyaradan runtii qurba joogta ah oo waddankooda maal gashtay dadkooda maaragtay u soo gurmaday dhibaatada haysata qayb ka qaatay runtii ku dayashay mudan yihiin waan u mahad celinaynaa. ku dayashada marka ay mudan tahay waxa waaye in horta ayaga mashruucay bilaabeen la dhiirigeliyo la taakuleeyo mashaariic ayaga la mida la fuliyo sektarro kale la maal gashto waddanka loo la jecloodo loo soo noqdo ku dayashada iyo taakuleynta intaasaa ka mid ah. waad ka warqabtiin labadan maalmood in dhibaato ay ka taagneed xagga biyaha iyo muxuu ahay shubanka iyo arrimaha la xiriira. waa ka warqabtiin magaaladu inay fatahaado badan ay ku soo noqnoqdaan ceelkan iyo mashaariicda kaleeto la mida oo ceelasha oo qaar ay ganacsatadu ay hadda bilaabeen qaarna mataqaana hay'aduhu ay fuli doonaan waxay ka mid yihiin la tacaalka lagula tacaalayo dhibaatooyinkaas magaaladan ka jira. waxaan rajaynaynaa biidnillaahi tacaala in haddii la islahaa muxuu ahay magaalada Beledweyne biyo kama dhowa biyihii waa kaasoo muxuu ahay ceelka ugu horreeya waa la qoday sidaasay muxuu ahay ilaa ceel gaal laga gaaro mataqaanaa ii sheeg water table-ka uu wanaagsan yahay. waxaan anagu ballan qaadaynaa shirkaddan iyo shirkadaha la mida oo si private u maalgashtana inaan taakulayno wixii ay nooga baahdaan aan ku taakulayno wixii mashaariic ah oo hay'ado wadaanne loo fuliyo si aanan ka hor imaanayn
muxuu ahaay danaha private sector-ka sababtoo ah private sector-ku wuxuu u baahan yahay in la kobciyo kobcintaasna waxa ka mid ah in la siiyo space ay ganacsigooda iyo maalgashigooda ay uga faa'iideystaan aad u mahadsantihiin ugaas adigana waa mahadsantahay runtii doorkad arrintan aad ku lahayd السلام عليكم ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ahaa maskaxdii hindistay ceelka riiga ah juhdi badanna ku bixiyay intii uu socday dhismaha ceelka riiga ah ayaa sheegay in 60kii sane la soo dhaafay dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee haatan jirta ay si isku mid ah ugu guuldareysteen in Beledweyne ay ka hirgeliyaan ceel riig ah si bulshada Beledweyne ay u helaan biyo macaan oo nadiif ah qaadanay 1960 waa 2020 60 sano kadib waa maalintii noogu horeysay ee Beledweyne ceel riiga laga qodo taariikhdu waa qormaysaa anagu hadda ka hor xamaraan tagay waxaa la yidhi meyd maxaa u dambeeyey kaa la sii sido 60kii sano ilaa hadda meeqa dawlad soo martay waa dalka tirin maayo dawladda u dambaysa oo hadda taagan 3 bilood baan xamar fadhiyey oo aan weydiinayo biyo aan cabno bal wax kaleba annagu shaqaba kuma lihin aan halna biyo nadiifan cabno waa suurtoobi weyse maanta waxaa ilaahay mahadiisa inay noo bilaabatay beej cusub beejkaasoo inoo keeneen 2 weel oo qurba jooga inay riig keenaan Beledweyne oo biyo nadiifa aan helno taasaa ilaahay mahadiisa wixii noo dhiman hadday tubad tahay hadday ceel kala tahay dawladdaannu ka sugaynaa waana mahadsantihiin